وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ما هذه الله يبارك سبحانه وتعالى نقدر جيد الإسلام كواب ترصدا كلمة دقائقة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أنت كذب وحن نوم هذني الله إن يدورين النقطة إن قفضتك المسلمين تا كعوية كلام كإلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن سدا ودر ريال وحنوم هالنقيا لمن إن جودهان ذكر سوماليلان gaarahaan xukuumadda Somaliland waxaan si gaar ugu mahadnaqayaa maayarka halka fadhiya iyo gudoomiyaha degmada iyo maasha Allah nabadoonka guud suldaanka guud hawd dhakhtarka iyo dhammaan culimada halka fadhisa barnaamijkan waxa loo maartay kullee insha Allah taala soo diyaariyay barasabka si aan u ogaano wax qabadkeena looga warbixiyo dadka shakiga ku jiraan looga saaro. Saad garanaysaan waxaan deganahay magaalada Boosaaso. Amalkaan hayana waa mid ka adkaaratay YouTube-ka ma yahay sixroole ma yahay qof shaydaan la shaqaysta. waxaan ahay dadka muslimiinta nin jecel inuu anfaco sida nabiga sallallahu alayhi wasallam inoo tilmaamay man istada'a minkum an yanfa'a aqahu فليفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم سوكلا هدي وود متكين إنه أنفع ولا لك أنفع وحنا خرينا وواحد مقشن ما نقرصونا وأنا جو ما هي فعية ما فالية أما ساحر لبنون تيوح وشيء سمع عدوا وين بانكو حري وحكى الصباح أنا وكلام رب العالمين قف قرنيا قف كان فاهمين إنه والله شيء إنه وحنا خرينا القرآن جاي هل كنا وحنا يمد إن يتعدل كيجي أما إهل كيجي dadka qaar waxa laga yaabaa inay maartay islaan ninkani waa fog yahay laakiin dadka ha loo sheegay inaan ahay 70% Somalilander adigu sidaa doonto u soo bar waxaan nugay naas baan nugay awlaadeedo dhanna waxa way waa Somalilander weeyaan marka meesha iskama imaanana waxa keenay dhiig iyo hilib waxaan doonayaa inuu heliyo dadkayga la sixray ee saarka la dab istaagay wax dadku markay yimaadaan Boosaaso waxaan ku sameynay diiwaan gelin baan ku sameynay 6,000 oo qofood ayaan waxaan qornay hal sano 12 bilood 6,000 oo qofood oo ka yimid Boorame Burco iyo Hargeysa dadka yaa sixray su'aashu waa inta weeyaan wayna iska cadahay dad baa sinjiga farcawle inuu ummadda muslimiinta kula mashquulaan sixir wala la garanaya meelaha la sheegay loo furay sixirka dadka lagu sixro waxaan ka codsanayaa dawladda Somaliland inay u kaba gashato dadkan suxarada ah iyo dadka hoosta ku wata ee dadkoodii baabi'iyay dumarka maanta ugu dambeysay aan quraanka saarnay ilaa 1200 bay gaarayeen 850 qofood kama yarayn dumarka sixirka qaylinayay waxa la sixray waa hooyada waxa la sixray waa walaasha waxa la sixray waa gabadhaadii taas waxaan ka codsanayaa dawladda culimada Somaliland sharafta leh ee qiimaha badan ee ahludiinka ah ee inta quraanka taqaanaba waxaan idinka shafayaa dadkii waa la sixray cadow baana haysta jin ayaa ka qaalib noqday afraad saa ka qaylinaya ishu way u dheertahay waxay doonayaan quraanka in lagu kaalmeeyo qiyaamana waxaad baratay waa lagu weydiinayaa waxaan ka codsanayaa inaad samaystaan xarumo waaweyn oo dadka lagu cilaajiyo ilaahayna loogu dhawaado subxaanahu wa tacaala adiga sheekh is cilaaji ilmahaaga cilaaji dhammaan inta ehelkaagana u sameey waqti aad cilaajiso maxaa yeelay quraanku waa dawo ilaahay baa noo sheegay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay cadowga ama xasadka aan ogolayn hawshan la qabto hawshan waa la wadayaa mana joogsan doonto ilaa inta aan noolahay haddaan dhintana kuwa kale oo u tababaran ama aan dhalnay ama nala dhashay ama ehelna unbaa soo bixi doona waxaan si gaara ugu dirayaa niyahow hadalka ay sheegayso hubso rag baa istaagay oo ninkaas jinnigu la shaqaysta waa sixroole si ay dadku u waswaasiyaan arrinkaas ilaahay ka caafiyo anigu waxba kuma haysto laakiin hubi ilaahay ayad quraan ku sheegay hadduu idin yimaado mid beenlow ah cadday hadalku leeyahay waxaad leedahay waa la yiri waa lagu yiri shaydaan baa ku yiri anigu cafis bad naga tahay laakiin walaal intaad aniga u mashquuli lahayd ummadda maanta kaalmay doonaysa diinka waa taqaanaa u kaalmeen marka hadalkan waan dheereeyey waxaan diyaar u ahay inaan shaqada wado weliba noloshayda aan ka siiyo waqtiga ugu dheer dalkan meeshaan hadda imidna
hargeyso dadkii baanu maamuli weynay waa la kala celin waayey rag iyo dumarka baa isdhex galay sidaasaan nagu kaliftay inaan soo dhawaano halkan aan joogana waa meesha waxa weeyaan maaragtay dee aan isleeyahay haba lagugu duugo marka ninka luqluuqa maraya xumaan raadiska ha ogaado